ورا فيصل نقول ما هيركز وقرسي هيركز وقرسي سماعة هير كان يحقق لا إله إلا الله باشنا صح ولا كده صح ما ديارته هذه gacmaha hoos u dhig diyaar ma tihiin afeer bilawga diyaar ma tihiin أنا لا وجهي محضور يا قفكي ديار صوتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد آمين وهرينتي وحن ليهي إلهي سبحانه وتعالى
waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dadka shacabka Soomaaliyeed oo maanta ku gaartay degmada Wadajir qarax ay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano waa u jeedin degmadii inay burburtay waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummadda Soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelahay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada Wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen waa u jeedin qasaartada ay geysteen ama maartay say rabeen waa u noqon weysay cadowga insha Allah taala waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ma aha maanta shabaab wuxuu beegsanayo dawlad ma aha waan ku celcelinayaa mar walba dawlad ma aha madaxweyne ma aha ra'iisul wasaare ma aha wasiirna ma aha taliye ciidanna ma aha wuxuu beegsanayaa shabaab jiritaanka shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir waa in saas loo fahmo shacabka inay fahmaan inuu yahay cadowgooda koowaad shabaab cadowgooda labaad shabaab cadowgooda saddexaad shabaab inuu yahay saasina u dareemo waa laga maarmaan dadkii meeshaas ku dhintay waxaan ugu tacsiyeenayaa anoo ku hadlaayo wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay samari imaan dadkii ehelka ay ka tageen samari Allah naga siiyo kuwii ku dhaawacmayna gacan ka xaqdarno dhaalimada dishay ama wax gaarsiisay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo waxa lagu jiraa 10kii dambe Ramadaan oo khayrka iyo wanaaga badnaa kuwii ku dhintay waxaan rajaynaynaa inay yihiin shuhado oo shahiid ah niman khawaarij oo mufsidiin oo arrada ilaahay fasaadinayo ayaa dishay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarugno markay waayeen shabaab meelaha inaga soo galaan aan xirnay oo ciidankeena uu taagan yahay in degmadii shacabka loogu adeegayo oo aan la xiri karin inay soo beegsadeen ku beegsadeen shacabka Soomaaliyeed mar meel walba ay ka waayeen shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir degan u diyaar garoowa shabaab saa iskaga celin lahaydeen shabaab maanta uma jeedo dawlad kali wuxuu u jeedaa shacabka Soomaaliyeed jiritaankeedii iyo nolosheeda inay baabiyaan aan u diyaar garoowno oo qoriga aan u qaadano oo tuutaha u xiranno oo shabaab meel walba uu joogo aan beegsanno cadowgaas manaxariistaha horarka ah ummadda Soomaaliyeed inuu baabiyo maalulba ku faraxsan waana arki doontiin miidiyooga Andalus waxay ku soo sheegi doonaan in dad badan oo murtadiin ay dileen ay sheegan doonaan cali dheera sheegan doono midka uu Muscab ay dhaana sheegan doono waa in wax muuqdo waa in ku faani doonaan shacabka Soomaaliyeed dhiigooda inay daadiyaan waxay ku faani doonaan shabaab annagana waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay shacabka inaan difaacano shacabka inaan badbaadino shacabka waxa dhaawacooda qaaday arkaysan waa ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda dawladda federaalka Soomaaliya waa u jeedin wariyaasha daatiin insha Allah ta'ala waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aan buraarugno cadowgaas sidaan iskaga celin lahayd aan u buraarugno waxa waaye dhowr 10 ruux oo shacab dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intee saraakiisha iyo ogeysiisay insha Allah ta'ala wixii ka soo cusboonaadana gadaalaan ka soo sheegi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo dadkii halkaan ay ku dhaawacmeen oo ku jiray gudoomiyaha degmada Wadajir arintaas dhaawac weyn ma gaarin wali ninka la gudoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego media aan ka sheegno ma gaarin insha Allah ta'ala asagana soo sheegi doono media soo hortaagi doono Ilaahay raali ka noqdo xirteen dacdayaasha islaamiga loo ilaaliyo amaankiisa baabuurta hal meel ay soo keenteen qaraxyadu way dhacayaan maxaa isbedel qaraxyada ma dhacayaan cadowga waa laflacaari cadowga waan baabiin doonaa waa u jeedin shalay u dambeysay waxaan qabanay horjoogihii amniyaadka ahaa oo shabaabka gobolka Banaadir u xilsaarnaa waa ka amniga ay qabteen qof walba shabaabna saas loo qaban doonaa gobolka Banaadir waa laga safeyn doonaa Ilaahay raali ka noqdo qaraxa waa baabuur oo lala beegsaday degmada oo lagu dhuftay